kulanti wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana ka mid ah ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo soo bandhigay qariirad Soomaali ah oo laga jaray Somaliland iyo fadeexad weyn oo soo wajahday madaxweyne Farmaajo al-shabaabkii ugu badnaa abid oo lagu dilay hal goob Sheekh Shaakir oo kulan degdeg ah xalay la yeeshay saraakiishii ahlu sunna ay ku biiray dowladda maxay ka wada hadleen xog ayaan idinkaga hayaa al-shabaab oo xalay gudoomiye iyo ruux kale dil iyo dhaawac u geystay gaalkacyo Somaliland oo qabatay ku eedeysan kufsi iyo dil iyo dowladda Suudaan oo ku dhaqaaqday tallaabo si weyn ay uga caroodeen dadka reer Falastiin haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kastoo aan channelkan soo gelino riix calaamada gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wax kastoo aan channelkan soo gelino intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa bartiisa Twitter-ka ku baahiyay qariirad yaab leh oo muujinaysa Soomaaliya oo laga jaray gobolada waqooyi oo haatan loo yaqaan Somaliland qariiradan ayaa Abiy Ahmed wuxuu Itoobiya ku muujinayaa midabka cagaaran hase yeeshee waxaa ka muuqda Soomaaliya oo laga jaray gebi ahaanba gobolada waqooyi ee Somaliland waxaa la socda fariin kooban oo afka Amxaariga iyo Ingiriiska lagu kala qoray oo macnaha noqonaysa xurriyadda dalkeena barwaaqada dalkeena ka sokow in qariiradan Soomaaliya laga jaray gobolada waqooyi haatanna sidoo kale kama muuqdaan guud ahaan gobolada Somaliland oo waa meel iska maran dadka qaar ayaa taasi ku micneeyay in Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu aaminsan yahay in Somaliland aysan ka mid ahayn Soomaaliya inteeda kale balse aysan aqoonsi haysan sidaas darteedna uusan u muujin lama yaqaan sababta uu Abiy Ahmed u sameeyay sidan hase yeeshee waxa kaliya ee laga fahmi karo ayaa ah waxa uu ka aaminsan yahay Soomaaliya iyo siyaasadiisa ku wajahan dowladda Itoobiya ayaa toddobaadkii tagay rooga cas u fidisay isla markaana dhinac dhigtay calanka Somaliland markii ay soo dhaweysay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo toddobaadkii hore gaaray magaalada Addis Ababa maahan markii koobaad website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa 26kii bishii May 2019 la soo dhigay maab ama qariirad si cad uga xadgudubtay madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya qariiradaas oo ahayd tan qaaradda Afrika ayaa gabi ahaanba laga tiray Soomaaliya oo lagu daray Itoobiya laguna muujiyay qariirada in Soomaaliya ay ka tirsan tahay Itoobiya qariirada cusub ee uu ku baahiyay Abiy Ahmed Twitter-kiisa ayaa la soo dhigay 10 saac iyo bargalabnimo xilliga Muqdisho hase yeeshee laga saaray 11 iyo bargalabnimo kadib markii cara xoogan ay ka dhalatay oo Soomaali badan ay qoraalo ka dhan ah muujiyeen Twitter-ka ayaa sidoo kale ahaa mid baanid ah oo meesha sare lagu dhajiyay si qoraalada ka dambeeya ay mar walba uga kor ahaato madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Abiy Ahmed ka dhigtay saaxiibkiisa koowaad wuxuuna rumaysan yahay inuu yahay ninka badbaadin kara Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasi Afwerki ayaa sameystay isbahaysi saddex geesood ah toddobaadkii tagay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaa ku kulmay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inkastoo aan la soo bandhigin waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa la kulankaas soo qaban qaabiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed dowladda Soomaaliya ayaa gobolka Shabeellada Hoose ku dishay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee Danab ayaa deegaanka leegay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ka sameeyay howlgal culus oo saraakiishii hogaaminaysay sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen saldhigyo ay leeyihiin al-shabaab dagaal xoogan oo dhex maray labada dhinac ciidanka dowladda iyo al-shabaab ayaa waxa uu geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac taliyaha guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalik ayaa sheegay in howlgalkaas ay ku dileen 13 xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuna sugnaa deegaanka leego oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Walaweyn gaashaanle Ismaaciil ayaa xusay in ciidanka kumaandooska gobolada dalka ay ka wadaan howlgalo dalka looga saarayo al-shabaab isla markaana ujeedkiisu yahay inay kala wareegaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka
si kastaba ma jiro dhankooda wax warow ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan warka ka soo yeeray saraakiisha ciidanka danab ee ah in howlgal ay ku qaadeen deegaanka Leega ay ku dileen xubnihii ugu badnaa oo al-shabaab ah. sidoo kale taliyaha ayaa iska dafiray in ciidanka xoogga dalka ay weerarka wax khasaara ka soo gaaray markaana Galmudug. madaxweynaha Galmudug garabka Ahlus Sunna ayaa kulan degdeg ah iskugu yeeray saraakiishii Ahlus Sunna ee ku biiray dowladda Soomaaliya. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa haatan kulan uga soconaya madaxweynaha Galmudug garabka Ahlus Sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo saraakiisha ciidamada ka howlgala deegaanada Galmudug. kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah dhammaan saraakiisha laamaha amniga sida militariga, nabad sugidda iyo booliiska, waxaana ilo ku dhow kulanka ay sheegeen in looga hadlay xaaladda amniga ee Galmudug iyo sidii ciidamada uga fogaan lahaayeen wax kasta oo keeni kara xasilooni darro. Sheekh Shaakir oo Ahlus Sunna u dooratay madaxweyne ayaa aad uga soo horjeeda madaxda dowladda aqoonsan tahay sida madaxweyne Qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa, waxaana dhinacyadooda horay ay ula kulmeen saraakiisha ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaanada Galmudug. kulankii ugu dambeeyay madaxweyne Qoorqoor la qaatay saraakiisha ciidamada militariga ayaa wuxuu ku amray inay si awood ah uga hortagaan cid kasta oo abuuraysa amni darro taa oo la jeeday in Ahlus Sunna la weeraro. markaana gobolka Mudug, magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhankeeda waqooyi waxaa xalay lagu dilay gudoomiyaha xaafadda Garsoor waqooyiga Gaalkacyo Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Nuur Geesdir. dilka gudoomiyaha waxaa geystay sida la sheegay kooxo bastoolada ku hubeysan, waxayna sidoo kale weerarkaas dhaawac ka soo gaaray nin kale oo la socday gudoomiyaha Allah u naxariistay. dableyda oo sida la sheegay tiradooda dhammeed 3 nin oo dhalinyaro ahaa ayaa madaxa xabada kala dhacay gudoomiye Geesdir oo goobta ku dhintay, waxayna qeybaha sare ee jirkiisa dhaawac ka gaarsiiyeen nin kale oo la socday kaasoo dhaawacaysa loola cararay isbitaalka guud ee Gaalkacyo. kooxdii geysatay dilkaasi ayaa goobta iskaga baxsatay, waxaana in yar kadib gaaray halka uu ka dhacay falkan ciidanka maamulka Puntland iyo kuwa isku dhafka ah ee ka howlgala Gaalkacyo, kuwaasoo bilaabay baaritaano ay ku baacsanayaan qoladii ka dambeysay dilka iyo dhaawaca loo geystay gudoomiyaha xaafadda Garsoor iyo nin la socday. ururka al-shabaab ayaa durba warbaahintooda ku qirtay in ay dileen Cabdiraxmaan Nuur Geesdir, waxayna warkooda ka sheegeen inuu xiriir dhow la lahaa ciidamada BSF ta Puntland, sidoo kalena uu ka tirsanaa maamulka waqooyiga degmada Gaalkacyo ee Puntland. Somaliland ayaa ciidankeeda booliiska ah waxay Hargeysa ku xireen nin geystay kufsi iyo dil. ciidamada booliiska Somaliland ayaa la xaqiijiyay inay gacanta ku soo dhigeen nin la sheegay in habeen ka hor kufsi iyo dil uu u geystay gabar 15 sano jir ahayd. falkan ayaa saraakiil ka tirsan booliiska Somaliland sheegay inuu ka dhacay degmada lagu haya oo ka tirsan gobolka Awdal, isla markaana ninkaasi uu baxsad ahaa. taliyaha booliiska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada ay qabteen ninkaas loona gudbiyay saldhigga dhexe ee magaalada Boorama. ehelada gabadha kufsiga iyo dilka loo geystay ayaa dhawaan booliiska Somaliland waxay ka dalbadeen in cadaaladda loo horkeeno ninkii ka dambeeyay falkaasi, hase yeeshee haatan ninkaasi gacanta lagu dhigay. markaana daawadayaal warkii dibadda, dowladda waddanka Suudaan ayaa qaaday tallaabo si weyn ay uga carowdeen dadka reer Falastiin. diyaarad ay leedahay Israa'iil ayaa markii ugu horeysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taasi oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay hore isku hayeen. Israa'iil ayaa farsamo ahaan dagaal la ah dalka Suudaan oo taageerta kooxaha Islaamiyiinta ah oo ay ku jiro Al-Qaacida oo marka caawin jirtay xilligii madaxweyne Umar al-Bashir. Bashir ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkiisa ay xilka ka eriyeen bishii Abriil ee sanadkii hore kadib banaanbaxyo socday muddo bilooyin ah oo dowladdiisa looga soo horjeeday. diyaaradda Israa'iil waxay dhaaftay shalay hawada Suudaan, waxaana ay muujinaysaa isbedel, ayuu Netanyahu ugu sheegay magaalada Qudus xubno ka tirsan hogaamiyaasha Yuhuudda Mareykanka ah, mana uusan bixin wax tafaasiila. wargeyska Heritage ee ka soo baxay Israa'iil ayaa ka soo xigtay sargaal ka tirsan dowladda oo aan magaciisa la sheegin in ay diyaaraddu ahayd mid qaasa. daawadayaal waa naga intaa wararkii ugu waaweynaa caalamka. haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo